السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وهذا سيدا كتمية كورس كتحنا إنه كبرنا programming language كلو يقان دارت كانوا 10 كيني تطبيقات chapter كا لبات وإن كبرنا تروح لا يقان مركا 10 كان comments مركا الجورين programming language كا والشيء ده أتكون مهم كا مركاسي مركا كور كا الله آخري كريو إسلام مركا هذا تولو حويا أدو جان كريسو حويا كور كستو قرتي وتشيت كدو تشيتي أي مركا الله استعماله مركا انتقنو project كنا في شغل استود كور كنا تدا right click new file مركا ساسين كبلا بتشنا 07 10 كنا تطبيقات أو نقول comments.dart deedna waxa la markaa waxa ka soo bilaabmaya waa void main kadib waxa la markaa barteen ka gelinay in markaa soo qaadanna ugu horeyn waxa jira markaa dhowr nooc saddex nooc oo kala duwan oo markaa loo qoro comments-ka ka ugu horeyn waxa loo yaqaanaa waa single line ayaa loo yaqaanaa tusaale ahaan markaan doonayo inaan qoro مثلا printing shay baan doonayo inaan soo qoro waxa tusaale ahaan hello مثلا wall way qoraalka markaa sidiisaan qoro haddii aan doonayo inaan shay ku dul calaamadiyo double slash baan qorayaa dadna markaa waxaan tilmaamayaa waxa la this is a مثلا waxa la single line comment kaas markaa wuxuu sheegayaa double kaas wuxuu sheegayaa hal line oo comments ayaan qoray tusaale ahaan markaa haddaan halkan kale waan kaga qori karaa double slash one line ba markaa sii raacin kartaa this print a message way ka markaa waxa loo yaqaanaa waa single comments ba loo yaqaanaa single line comments ba loo yaqaanaa marka haddii aad tiraahdo kan iga soo stop garee debugging hore iska soo jeedii baan markaa soo ran gareeyo comment-ku sidiisa markaa shaashada kama soo baxo laakiin waxa loogu talagalay in readability-ga shay in lagu aqoonsado oo hadhow toole markaa waxa weeyaan la ogaado okay shayga waxaas looga jeedo markaa practical-ka waan eegi doonaa laakiin qaabka labaad isagana waxa loo yaqaanaa multi lines single line kan macnaheedu single line comments haddaan enter siiyo automatic waxa weeyaan markaa waa mar labaad haddana aan qoraa next line comments marka mar walba inta enter si double ka slash ka waan ku bilaabay laakiin doonay multi lines inaan hal mar wada qoro wadada labaad ee qori kariya waxa weeyaan slash markaad qorto xidigta aad qorto halka ugu marka inta doonto hoos u dhigi karaysaa marka wixii ka dhaxeeyo oo dhan mid waxa leeyahay multi line comments line 2 line 3 intii aad doonto marka ayaad comments kaga qorto marka doonaysaa shay faahfaahayso oo dhan multi lines ka isticmaalaysaa marka laakiin doonaysa hal single line kaliya ayaad isticmaalaysaa waxa kale markaa ugu dambeyn isagana jira wax loo yaqaan documentation comments inta badan markaa developerska ayaa loogu talagalay khaasatan package-yada markaa developerska ama librarieska markaa isaga double tree baa loo yaqaanaa markaa waxa la this function markaa doonayso artist wuxuu isku darayaa tusaale two numbers markaa kan wax loo yaqaan markaa documentation markaa inta badan kan wuxuu u khaas yahay marka aad doonayso waxa loo yaqaan inaad API ama packages ama library aad qoriso laakiin marka programming kaaga caadiga aad qoranayso code adigu aad leedahay iska qoranayso software ama package ama waxaad develop garanayso ayaad markaa isticmaalaysaa single-ka iyo multi lines-ka laakiin marka library ama API ama waxaad isleedahay dad kale oo developers hadhow toole isticmaali doona ayaa markaa loogu talagalay waxa loo yaqaano maxaa la yiraahdaa saddexdan line haddaynu eegno markaa tusaale ahaan imika string oo kale comment-ka meelaha ugu badan loo isticmaalo tusaale ahaan string sida markaa shirkaddan Google loo isticmaasho haddaan control qabto markaa ugu horeyn control dadna click baa siisay waxa ka sameeyaan imika documentation calaamadaha waxa ka sameeyaa waa comments marka comments-ku wuxuu faahfaahinaya qofka developer-ka markuu xagga sare soo istaago waxa inta code-ka iyo inta comments-ka waxa badan inta comments-ka tusaale ahaan part of the dart inta marka la qoray qoraalkan intan baa lagu faahfaahinay marka string-ga are mainly used waxa loo isticmaalaa marka wax alaal wixii loo isticmaalayo dhan noocyada kala duwan marka wax weeyaan single quotes baa jira double quotes baa jira double quotes in single baa jira marka halkaas dhammaan multi lines baa jira marka qorayso saddex dhibcood qoraysa marka developerska si uu fahmi karo ayaa marka loogu faahfaahisay marka comments-ka meelo badan baad isticmaalaysaa hadday tahay wax weyn aad code kaga dhowtoolaad waxa weeyaan aad ku kala organize garaysato ama dib aad ugu xasuusto waxyaabaha qaar ama haddii dadka developerska ay ka daba dhigreynayaan si yaro fudud ay u fahmi karayaan marka comments-ku waa shay aan daabacmayn ama aan programka ka dhex muuqanahaynin oo laakiin qoraal ah kaas waxa weeyaan aad ku muujinayso ama aad ku qeexayso code-ka qaybtaasi aad qortay intaas ku soo gabagabeynaa marka casharkeenan oo noqon doona casharkii ugu dambeeyay matchwalkan waxaan kula tegaynaa wassalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh